kusoo dhawaada HBM qodobo dhowr ayaan isla fiiri doonaa waxaana kamid ah maamulka jubaland ayaa waxa ay beeniyeen warar dawladda Soomaaliya ay sheegtay oo ahaa in maalinimadii Sabtida diyaarad ay leedahay dawladda Itoobiya ay ka degtay magaalada Kismaayo taasi oo dawladdu ay ku sheegtay inay waday hub aad u tiro badan maamulka jubaland ayaa arintaasi waxa ay ku tilmaameen warar been abuur ah oo dawladda Soomaaliya ay faafisay dhinaca kale waxaan isla eegi doonaa taliyaha kumaandooska ee danab ee ka howlgala jubooyinka ayaa waxa uu sheegay in ciidanka aysan ku milmin khilaafka dawladda Soomaaliya dawladda dhexe ee federaalka iyo sidoo kale maamulka Jubaland isagoona waxa gelinayay dhinaca iyo maamulka Jubaland qodobadaasi ayaan isla fiiri doonaa aynu ku hormarno maamulka Jubaland ayaa warkan oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dawladda Soomaaliya warar been abuur ay sheegtay waxaana ay ku tilmaameen wararkaasi inay yihiin waxba kama jiraan maalinimadii Sabtida ayaa dawladda dhexe ee federaalku waxa ay sheegtay in maamulka Jubaland ay ka degtay diyaarada itoobiyan airline taasi oo waday hub aad u tiro badan wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubaland General Yusuf Hussein Ismaan waxa uu sheegay idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga in aysan waxba ka jirin wararka dawladda Soomaaliya ay u soo gudbisay bulshada Soomaaliyeed ee ahaa in diyaaraddu ay ka degtay magaalada Kismaayo halkaasina ay geysay hub aad u tiro badan waxa uu soo jeediyay eedahaasina ku tilmaamay inay ahayd wax la soo dhigay baraha bulshada waxaana uu yiri dawladdu ma ahayn inay eedan noocan oo kala ah ay la timaado oo ay soo qaadato waxyaabo ay ka aragtay baraha bulshada waxaana uu yiri warkaasi ma ahan war sax ah dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhaliilay in ciidamada ay geynayso deegaano ka tirsan maamulka Jubaland ay ka leedahay arrimo siyaasadeed sidoo kalena ay doonayso inay ku soo duusho maamulka Jubaland arintaasi ayaana wasiirku waxa uu uga digay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ciidamada u tiro badan oo dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka dejisay deegaanka Raaskambooni iyadoona dawladdu ay ku tilmaamtay ciidamadaasi inay la wareegayaan xarumaha ay ka baxeen ciidamada ADMIS ee waqtigoodu uu sii dhamaanayo waxaana ay sheegtay in dawladdu ay halkaasi ciidamadaasi u geynayso sidii amniga u sugan sidoo kalena ay xureeyaan deegaanada qaarkood oo gacanta uga jira ururka al-shabaab dawladda dhexe ee federaalka ayaa waxa ay horay u diiday sheegtay inaysan aqoonsaneyn maamulka dib looga sii doortay Jubaland ee uu hogaaminayo Axmed Madoobe waxaana ay ku tilmaamtay inay tahay sharci darro madaxweynaha maamulka Jubaland ee dib loo sii doortay Axmed Madoobe ayaa waxa uu yiri aqoonsi uma baahnin dawladda dhexe ee federaalka waxaana uu sheegay in wax walba oo ku aadan mustaqbalka iyo danaha Jubaland isagu uu go'aan ka gaari doono waxa maalmihii u dambeeyay aad u sii xumaanayay sidoo kalena lagu guul dareystay in xal laga gaaro arinta khilaafka ee u dhaxaysa dawladda dhexe ee federaalka iyo maamulka Jubaland taasi oo ka bilaabatay doorashada qof iyo codka dawladda dhexe ee federaalka maalmihii u dambeeyay ama bilooyinkii u dambeeyay oo la heeday waday madaxweynaha maamulka Jubaland ayaana markii ay isfahmi waayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo halkaasina waxa uu ku qabsaday doorasho isagoona ku dhawaaqay in wixii ka dambeeya markii la doortay isagu oo madaxweyne ka yahay maamulka Jubaland go'aanada halkaas ka soo baxayaan isagu uu leeyahay dawladda dhexe ee federaalka ayaa waxa ay sidoo kale maamulka Jubaland ay ku eedeynaysaa ciidamada aad u tiro badan oo maalmihii u dambeeyay soo galayay qaar kamid ah magaalooyinka maamulka Jubaland oo itoobiyan si sharci daraan halkaas ku soo galayay in Jubaland ay ka dambayso sidoo kalena ay garab ka dalbatay Itoobiya in ciidamo iyo sidoo kale hub aad u tiro badan halkaas ay geyso Jubaland waa ay beenisay waxaana ay tilmaamtay in ciidamada itoobiyaanka ay ku sugan yihiin gobollo badan oo Soomaaliya ka tirsan sida Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Jubaland qayb kamid ah hadii Itoobiya ay doonayso in hub ay soo gelisana ay deegaanadaasi ay ku sugan tahay qaarkood ay soo marsiin karto dawladda dhexe gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo shalay warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dawladdu ay si aad uga xun tahay in ciido Itoobiyaan ah oo si sharci darro dalka ay ku soo galayaan waxaana uu sheegay in tallaabo adag ay qaadi doonaan sidoo kalena ay la tiigsan doonaan sharciga caalamiga waxa uu yiri ciidamada Itoobiyaanka waxa ay magaalooyin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay ka kaxaysteen gaar ahaan gobolka Hiiraan magaalooyin ka tirsan maleeshiyad ay ku soo tababareen magaalooyinka Itoobiyaanku ay leeyihiin ee gudaha Itoobiya
halkaasina ay hub badan ay ku soo siinayaan si ay khalalaasi amni darre uga bilaabaan ayuu yiri qayb ka mid ah Soomaaliya arintaasi ayaana waxa uu uga digay ciidamada itoobiyaanka ah in ay soo galaan gudaha dalka Soomaaliya dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xiriirkoodu waxa uu xumaaday 1 January sanadkan sii dhamaanaya 2025 markii heshiiskii MOU ay wada galeen dawladda Itoobiya iyo sidoo kale maamulka Somaliland oo xilligaasi madaxweyne ka ahaa Muuse Biixi Cabdi waxaana dawladda Soomaaliya arintaasi ay ku tilmaamtay in ay tahay faragelin ay Itoobiya ku sameynayso biyaha dalka Soomaaliya sidoo kalena aan la aqbali karin in Itoobiya ku soo xadgudubto dawladda dhexe ee federaalka ayaa arintaasi uga guuleysatay dhanka arrimaha dibadda diblomaasiyadda iyadoo Itoobiya lagu dhaliilay in aysan ku soo xadgudbin madax banaanida Soomaaliya gaar ahaan biyaha Soomaaliya Itoobiya sidoo kale dawladdu waxa ay ugu baaqday in ciidamadeeda ay kala baxayso dhamaadka bishan aynu ku guda jirno December waxaana la qorsheynayaa ciidamada ATMIS mandate-ka ku haysta in ay ka bixi doonaan dalka hadii arintaasi ay Itoobiya ku dhaqaaqo weydo dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in talaabo adag oo dhanka sharciga caalamiga ay la tigsan doonto waxaan arki doonaa xaaladdu sida ay noqon doonto saaxiibayaal waad mahadsantihiin